ciyaartoy ayaa ka qayb galay tartankan dhiirigelinta dhalinyarada orodada ee gobolka Togdheer oo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland ayaa maalgelisay tartankan. agaasimaha waaxda ciyaaraha ee Somaliland, gudoomiyaha ciyaaraha fudud iyo gudoomiyaha Olombikada Somaliland ayaa ka qayb galay dhiirigelinta tartankan. ciidamada booliska ee gobolka Togdheer oo horkacayo taliye ku-xigeenka ciidanka booliska ee gobolka Togdheer ayaa door weyn ka qaatay sugidda ammaanka hakinta gaadiidka intii orodku socday. saddexda ciyaartoy ee kaalmaha hore ka galay orodka 5 kiiloomitir ee gobolka Togdheer ayaa ku ciyaarayay magaca ciidanka qaranka ee gaashaan. isduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer Cabdikariim Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ayaa ka warbixiyay ujeedada tartankan, waxaana uu soo dhaweeyay wasiirka cusub ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi isagoo sabootiyay wasiirkii hore. waxay noo suurto gashay inaynu degmada Burco ku qabanno orod 5 kiiloomitir oo ay ka qayb galiyeen in ku dhow 100 ciyaartoy oo reer Burco ah oo aynu si xor ah u tartamayeen oo lagu tijaabinayay inay ka soo baxaan ciyaartoy si runtii matali doona gobolka Togdheer oo lagu dhiirigelinayay kaalmaha koobaad iyo labaad iyo saddexaadna ay jaaysado mid lacageed iyo mid abaalmarin kaleba iyo koob ay heli doonaan. taala wasiirka cusubna waxaan leeyahay soo dhawow oo ku soo dhaweynaynaa. waxaanu ka rajaynaynaa inaad halkii boos uu kaga tegay inaad ka sii dardar gelin doonto waan rajaynaynaa. gobolka Togdheer taliye ku-xigeenka ciidanka booliska, mas'uuliyiin ka mid ah wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer, xildhibaanada golaha deegaanka Burco ayaa dhalinyarada ku guulaysatay iyo inta aan guulaysanba ee ka qayb